anigu waxa weeye Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud waxa la soo diray inaan bukaanka indhaha ee xiryahan jooga ilaa Dadaab indhaha aan u fiiqno hadii la yiraahdo. barnaamijkan indha fiiqa lacag la'aanta ayaa waxaa qaliin loogu sameeyay bukaan ka badan 300 oo ka kala socday xiryaha qaxootiga Ifo Dhagaxley Xagardheer iyo deegaanada dariska la ah sida Dadaab Faafi iyo Koonfurta Wajeer waxaana sidoo kale daaweyn iyo la talin loo sameeyay in ka badan 1500 oo bukaan ka xanuunsan dhanka indhaha qaar ka mid ah dadkii indhaha loo fiiqay oo aragooda dib u helay ayaana dareen farxad leh u muujiyay isha waa la ii fiiqay waan u mahad celinaynaa intii noogu dhawaaqday intii noo keentay inta kale dal kulli waa wada mahadsantihiin xaradan ka imaaday waa Dhagaxley Qoya Maxamuudow aadan baa la ii yiraahdaa khayr iyo liibaan baan idinku ogahay inaad idinka keenteen dadkan raadiyahan ka maqlay kuwii liibaanay Allah idinka dhigo ilaahay idinkii annakana indhiina loo fiiqay ilaahay anagu caafimaad khayr la Allah na siiyo asagana Allah barakeeyo qaadir mahadsinya anti gurbaha roogtana mahadsanta ma in baahnaha an dhalinyarada Soomaaliyeed gurbaha wali Soomaali ah qootiga ana an oo garab qabadaan oo walna la qabado Allah si walna ka qabado kor qootigan leenka qabado ani Madiina Xuseen Xasan Ali dhaha duqabtigeygan waday marka ma sha Allah labada indhood eber buu ahaa hadda ilaa loo fiiqay oo ku mahadsan yahay dad ninkan qurbada dadka ka soo abaabulo dadka noo keenay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa Cabdiqaadir aad u mahadsan yahay haddana macnaha dadka walaalihiisa oo qurbaha jiray inay ku soo daysadaan oo sidii ninkan noogu soo garab qabtay oo masaakiinta qaxootiga 400 oo ruux hadda u qalaya afartaas haddana sanadanba waxaan rabnaa kun ruux inuu u qalo hooyadan waxay aragga la'ayd muddo ka badan 7 sano waxayna aad ugu faraxsan tahay nuurka iyo iftiinka ay aragtay alxamdulillah ilaahay mahad iyo shukr ku leh xaalay kaliix aftiinki aan arkay yaa xaalay ilaahay aan u bariyay oo adigu ku bariyay kii fiiqay aan u bariyay aftiin iyadoo isaaranta yaan aftiinka arkay alxamdulillah ilaahay mahad iyo shukr 6 سنة يتدبر سنة الآن إيشان وان مدان كون مع اللي في حياتي كان كل كسر دقة اللي في آخر إذا هذا وقابس نبرة كل دعاء واحد نبرة كل دعاء منا الله لا ينالن بالكوات سيدا فرحد هذا وحق من مؤه حاليا أنكو بري هذا وقت كان أنكو جوع إيش هذا وسق نقطة يفكش ما كنا نرايو وحنا ما أكيس قدو waxaan rabaa isha in nadaaf aato gudaheeda ka ilaali labada wiiga ugu horeysay ku dhacdo biyaha Dr. Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud waa hormuudka mashruucan oo dhaqaalaha ku baxay ay bixiyeen qurba joogta Soomaaliyeed ee wadanka Mareykanka iyo qaybo kamid ah wadanka Canada waxaan qalaynaa indhaha u fiiqaynaa 3 xiro oo xagga dheer Ifo Dhagaxley iyo Dadaab iyo inta ku wareegsan inta ku wareegsan qof kasta oo ka qayb galaya ama ka faa'iideysan kara indhaha ayaan ugu talagalnay mashruucan inuu ka faa'iideysto waa markii labaad oo aan imanayo halkan 2019 bishii koowaad 14keeda ayaan indha qal sameynay waxaan indhaha u fiiqnay 200 oo qof oo 3 xiro iyo Dadaab inta ku wareegsan ah waxaan ka faa'iideystay dad badan oo indhaha laga daaweeyay qaar badan oo loo qoray mataqaana oo kiyaale haddana mar kale ayaan imaanay annaga oo lacagtu ay bixinayaan Soomaalidii isku tashatay oo deganeed North America iyo qaar ka mid ah Canada marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan mar kale ku soo noqdo aniga oo matalaya bulshada Soomaaliyeed aaday dibadaha iyaga oo ogolaaday inay bixiyaan xoolahooda ugu deeqaan dadkooda dhibaataysan degan xeryaha Dadaab iyo inta ku wareegsan oo deegaanka aad baan ugu faraxsanahay maxaa dhacay imaatinkayga waxa ka faa'iiday dad fara badan oo arkay ilaa iyo shalay ilaa iyo darad ilaa 4 maalmood baan qalaynay indhaha qaar ka mid ah ehelada bukaanka la caawiyo ayaa si aad u soo dhaweeyay adeega loo fidiyay waxayna bogaadiyeen Dr. Cabdulqaadir iyo dadkii gacanta ku siiyay fulinta barnaamijkan oo baahi badan loo qabay waxaan ka imaanay magaalada Sabuuli maamooyinkan ayaan waday maamadan aad arkayso hooyadeed
3 sano waxba may arkin maamadana waa hooyaday eedadeed muddo 5 sano ku dhawaad waxba may ka arkin marka alxamdulillah saaka markii faashada laga fiiqay indhaha loo fiiqay shantayda gacmood baan saan ku dhahay waan aragnaa alxamdulillah bay dhahan ilaahay baa mahadeen u celinaynaa wiilka noo soo qalqaaliyay oo intanoo dhib iyo intanoo dhibaato noo soo maray ayaan mahad u celinaynaa marka dadka qurbaha la jira oo Soomaalida ee waxaan dhihi lahayn wiilkan sidoo asaga noo caawi oo noo garab istaagay idinkana noo garab istaaga oo wiilka ku dayda gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan taas ayaan dhihi lahaa wuuna mahadsan yahay khayrna Allah siiyo wallahi wax weyn oo looga dayan karo way jirtaa maxaa yeelay Soomaali waxay tiri ratiga hore kan dambuusan qaadkiisa leh dadka hore maadaama ay waxaas garan waayeen oo asaga noo gartay wax badan oo looga dayan karo way jirtaa waayo hooyaday 3 sano ayaa masquul la geynay oo waxba ay arkaynin maantana alxamdulillah waa shalay eegi loo fiiqay maanta wax way aragtay waatan adiga way ku garan waxaad hays way arkaysaa ilaahay baa mahad iskale alxamdulillah waa markii labaad oo barnaamijkan indhafiiqa uu ka fuliyay xeryaha qaxootiga Dr. Cabdulqaadir oo kamid ah dadkii ka dhoofay xeryaha balse xusuustay dadkii uga tagay isla xeryahan marka waxaan ka nasan waayay dadkayga dhibaataysan oo ku nool xeryaha Dhadhaab inta ku wareegsan deegaanka in ay ka faa'iideysan karaan haddii aan mashruuc kan oo kala keeno inay ka faa'iideeyaan baan ogahay taas aan u dhalisay inaan keeno mashruucan indhafiiqa dadka la caawiyay iyo ehelkooda ayaa si aad ugu farxay adeega indhafiiqa oo ay fuliyeen bulshada Soomaaliyeed ahna isku tashi waxayna codsadeen in la sii wado Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Dhadhaab